وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إلهي بقى محمد سبحانه وتعالى وحانو دمان أمهات علينا dadka reer Berbera dhammaan musharaxiintii soo tartamay oo codeeyay waxaanu leenahay waa mahadsantihiin in alaaliintii aad doorateen intii aad codeyseen aad codkiina ku soo saarteen iyo intii caawisay ku cod ku soo baxayba maanta xilkii iyo mas'uuliyadda anaguna saaran yahay annaga shacbigaygu waa noo mid shacbigayga degmada Berbera golaha deegaanku xisbina ma matalo reerna ma matalo waa gulihii deegaanka kitaabkaas gacanta loo saaray insha Allah waxaan umada u sheegnay oo ugu shaqeyn doonaa waxaan doonayaa in laba saddex qodob inaan uga faa'iideysto mahadnaqa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo mahadnaqa dadweynaha ka yimaado waxaan doonayaa doorashadu waxay leedahay hadallo fara badan oo qadafa oo dhaca ama sax kaaga yimaado ama qalad kaaga yimaado waxaan doonayaa xildhibaanadii aan ku guuleysanin iyo xildhibaanada ku guuleystayba inaan cadeeyo ereygii aan hore u yeedhin ahaa meel ka dhacin ahaa golahana xaal baan ka siinayaa ereygaas wuxuu ahaa waa saxaafadda qaladka iskalo etigiska saxaafadda inay ilaalisaa muhiima waxyaalahan kuba habboon in naga qof laga duubaa waa qalad weeyaan laakiin ereygaas wuxuu ahaa aniga my personal shakhsiyadeeda la weydiiyay golaha lama weydiin ma soo sharaxaysaa ma la yidhaahaa dee waxaan idhi waxaan maayarnimo ahay meesha ma taala baan ku odhi ereygaasi qalad buu ahaa saxaafaddaana mas-uuliyaddeeda iskale inay ka saartaa bay ahayd waxaan leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka waa kuwa aniga ay doortay waa kuwa ay doortay weeye anaga iyo guddoonka xigeenkada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa kuwa nala tartamayna aad baan ugu mahad celinayaa iyo ragnimada